Ethiopia waxa ay beesha caalamka ah ay ku baaqaysaa in xiisada la dejiyo maadaama dib ay u soo cusboonaatay dagaalka u dhexeeya dowladda dalkaasi Ethiopia ciidamadeedii iyo sidoo kale kooxda maleeshiyaadka ee TPLF. waxaa walaac xoogan laga dareemayaa gobolka Amxaarada kadib markii labada dhinac ee xukuumadda Ethiopia iyo maleeshiyaadka TPLF ay eedeyn kulul ay isugu jeediyeen. dowladda Mareykanka, midowda Yurub, qaramada midoobay, midowda Afrika ayaa labada dhinacba ugu baaqay inay dagaalka ay joojiyaan. jabhadda TPLF ee Tigray waxa ay ka soo horjeesatay oo ay been abuur ay ku tilmaantay eedeynta uga timid xukuumadda Ethiopia ka oo ku saabsan inay soo riday diyuurad hub u siday kooxda TPLF. TPLF barta ay ku leeyihiin Twitter-ka waxa ay ku sheegeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu doonayo sidii uu marmarsiyo ugu heli lahaa sii socoshada howlgallada iyo sidoo kale qorshaha lagu ciribtirayo kooxdaasi TPLF. jabhaddu waxa ay tilmaantay in Abiy Ahmed uu isagu qorsho dheer uu dejiyey ka uu ku saabsan weeraro dhinaca cirka ah oo lagu qaado kooxaha Tigray. waxa uu beesha caalamka ah ay ugu baaqeen in ay faragelin ay kusoo sameeyaan si arrintaasi looga baaqsado. diyaaradaha dagaalka ee cirka ah ee dowladda Ethiopia ayaa Arbacadii sheegay inay soo rideen diyaarad hub u siday ayaa la yiri kooxda TPLF ta oo ka timid wadanka Suudaan. xukuumadda Ethiopia ayaa ku eedeysay TPLF Arbacadii in ay qaaday weerar dhinaca iyo bariga gobolka Amxaarada, waxaana la tilmaamayaa in weerarkaasi uu yahay mid loogu xadgudbay xabad joojintii muddada shanta bilood socotay. mas-uuliyadda waxaa dusha looga tuuray kooxda TPLF. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa ay dhinacyada isku haya Ethiopia ay ugu baaqday in ay laabaan dadaalada lagu xaqiijinayo xabad joojintii hore loo gaaray. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa walaac xoogana waxa uu tilmaamay in wadankiisa uu dareemayo maadaama dib uu soo cusboonaaday dagaalka Ethiopia. bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in labada dhinac ugu baaqayo inay miiska wadahadalka dib ay ugu laabtaan lana xoojiyo qodobadii hore loogu heshiiyey iyadoo aan la iska indhatiraynin in dhibaato ay soo gaari doonto dadka rayidka ah. waa inaan lagu xadgudbin arrimaha xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale waxyaabaha kale dhibaatada ku keeni doona dhaqaalaha wadankaasi Ethiopia. Blinken ayaa ugu baaqay xukuumadda Ethiopia iyo jabhadda Tigray inay laabaan dadaaladoodii wadahadal ee lagu xaqiijinayo xabad joojinta shuruud la'aan. Blinken waxa uu tilmaamay in wadankiisa uu mar walba taageeri doono midnimada Ethiopia iyo madax banaanideedii. waxaan diyaar u nahay ayuu yiri inaan la shaqeyno dhammaan Ethiopia. waxa uu sidoo kale uu sheegay inay diyaar u tahay dowladda Mareykanka sidii dhibaatooyinka hadda taagan looga gudbi lahaa. madaxa sare ee siyaasadda ee arrimaha dibadda iyo amniga midowda Yurub Joseph Borrell ayaa sidoo kale waxa uu digniina uu ka soo saaray sii socoshada dagaal u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo kooxda TPLF. waxa uu tilmaamay in arrintaasi ay dhibaato weyn ay ka dhalan doonto. Mr. Borrell ayaa waxa uu bartiisa Twitter-ka uu soo dhigay in dhinacyada dhammaan uu ugu baaqayo in ay isdejiyaan waqtigaasi ay jirto wadaxaajoodka nabadda ayaa waxa uu ku baaqay in la sii adkeeyo. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa dhankiisa waxa uu ku biiriyay codkiisa in loo baahan yahay meeshii laga ambaqaadi lahaa ama dib loogu soo cusboonaysiin lahaa dagaalka in la xoojiyo xabad joojintii hore loo gaaray dibna la isugu yimaado miiska wadahadalka si waxyaabaha ay labada dhinac tabanayaan loo xaliyo. gudoomiyaha midowda Afrika Musa Faki waxa uu walaac xoogana ka muujiyay dhankiisa dagaalka ka soo cusboonaaday Ethiopia. waxa uu ugu baaqay bayaan uu soo saaray dhinacyada isku haya dalkaasi Ethiopia in ay xal nabadeed ay gaaraan. Mr. Faki ayaa waxa uu sheegay in midowda Afrika uu wadi doono howlaha ku saabsan isku soo dhaweynta dhinacyadaasi iyada oo loo adeegsanayo qorshe siyaasadeed. labada dhinac ayuu ugu baaqay in ay iyagu ay wada gaaraan heshiis ku saabsan xabad joojinta sidii loo adkeyn lahaa. bishii March ee lasoo dhaafay xukuumadda Ethiopia ayaa waxa ay ku dhawaaqday xabad joojin bini'aadanimo taa oo marina u furtay sidii gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay uran ay si degdeg ay ku gaari lahaayeen deegaanada colaaduhu ay la degeen ee waqooyiga wadankaasi Ethiopia. meeshaasi oo ay dad badan ay ka barakaceen kuwa kalena ay ku laadeen maadaama dagaal xoogan ah uu ku qabsaday ka u dhexeeyay ciidamada Ethiopia iyo kooxda TPLF.